عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada maanta iyo xiisadeenan oo aad u muhiim ah oo aynu ku qaadan doono macdanaha laga helo dhulka Soomaalida marka xog ururinta waxa la sameeyay ilaa intii u dhaxaysay 2013 ilaa 1940 meelaha marka wixii xog ah ee ilaa inta la ururiyay macdanaha dhulka Soomaalida ku jirta laga ururiyay siiba ahaan 60kii intaan xornimada la qaaday xataa way ku jirtaa marka ilaa 2013 baa la isu keenay marka wixii baaritaan ee muddadaasi la sameeyay ayaa halkan lagu soo koobay marka magaalo kasto kamid ah dhulka Soomaalida waliba siiba Soomaaliya Somaliland Soomaaliya isku dar Soomaaliya marka la yiraahdo macdanaha laga helo dhulka Soomaalida ee Somaliland Soomaaliya marka la isu keeno ayaa halkan lagu soo koobay marka baaritaanadan waa baaritaano aad u ballaaran oo la ururiyay weeye hadday noqoto qaar hay'ado sameeyeen iyo qaar shakhsiga sameeyeen iyo qaar dad badan sameeyeenba aduu waa la isku soo koobay kadib halkaas lagu soo ururiyay marka muhiimaddu waxa weeyaan inaad ka faa'iideysataan oo qof waliba meeshuu joogo tuuladiisa magaceeda uu garanayaa ama meeshuu ka degan yahay dhulkaasi marka inuu eego oo waxa ku hareeraysan ogaado ayaa muhiim ah marka insha Allah waynu guda gali doonaa marka wuxuu ku bilaabmayaa maqaalkani agro minerals waxa weeyaan waa macdanaha kiimikalada ah ee ama hadii beer loo isticmaalo ama hadii la cunayana ha la cuno marka waa agrochemical waa macdanaha kiimikalada weyn waa agro minerals marka maxay ugu muhiimsan intan ee aad halkan ku aragtaan phosphateskan iyadu waxa weeyaan waa nafaqooyin iyo waxa isku waa macdano weeyaan nafaqooyina marka iyadu waxa yiri buur massif mode some 25 km from Buur-Hakaba marka waxa laga helaa yiri buuraha mode meel ka soo sokaysa 45 km Buur-Hakaba marka xagee ku taala Buur-Hakaba daba on the road Baydhabo wadada Baydhabo tagta on the road to the Baydhabo wadada Baydhabo tagta ayay ku taala buuri marka halkan waxa kale ugu muhiimsan salty baa ugu muhiimsan oo aynu garanayna faa'iido noole marka cusbada waad garanaysaan cusbadu suuqyo badan bay leedahay waa la iibiyaa hadii ay noqoto waxba loo isticmaalaa cuntada lagu darsada waxyaalo aad u tiro badan waa la dawaa leedahay marka waxyaalo aad u tiro badan bay inoogu fadhidaa marka maca hubka laga sameeyaa milixdan marka waxyaalo aad u tiro badan baa laga sameeyaa marka hadaba halkay taala hadaba rock salt deposits marka cusbada midina waa tabada biyaha badda la fariisiyay ah midina waxa weeyaan waa cusbo buuro caadi ah oo caadiyo hadaad dhadhamisid dhalaana oo caadi milixdii caadiga ahayd u dhanaan eeg laakiin ka duwan oo natural ah oo buuro dhan oo cusbadaas oo sameysmo weeyaan marka anu toos baan soo arkay buurahaasi Hargeysa waqooyigeedana ku arkay marka waa buuro caadi ah moodina marka saltigii badda laga soo baxayay biyaha inta la fariisiyo milixda laga soo sameeyay marka saltigan waa tii buuraha marka wuxuu yiri rock salt deposits mudug sayla haafuun and hurdiya marka waa meelaha laga helo weeyaan galmudug waa laga helaa buu yiri dhagaxaan milix cusba ah waxa kale oo laga helaa sayla buuri oo kamid ah halka awdal bay ku taala ama selal bay ku taala gobolka selal marka sayla waa iyaduna kamid ah haafuun ma garanayo laakiin dhulka Soomaalida kamid tahay iyo hurdiyana waa dhul kamid ah dhulka Soomaalida hadaba hadaynu locationka oo toos halkan ka eegno dhinaca waxaad ku arkaysaan markasta oo ka eeganaysaan dhulka laga helayo macdanta dhinacana waxaad ka helaysaan sharaxaad dhinacana waxaad ka helaysaan macdanta magaceedii markasta saa u ogaada marka locationka kale wuxuu yiri warshuba waa meel kamid ah dhulka Soomaalida waxa kale oo yiri Hiinlaabi waa dhulka Soomaalida kamid tahay Baydhabo Oodweyne ka wadaaban mareynaya Oodweyne waayo Oodweyne waa Oodweyne ka wada halkaas filaya Oodweyne laakiin magaalada ma arag laakiin Oodweyne banaan u qaatay aan wuxuu yiri diinood sayla haafuun iyo hurdiya waa inta halkan lagu soo sheego faahfaahsan marka intaas oo meelood ama tuulo ayaa laga helaa cusbadaasi naturalka ah ee milixda marka industrial minerals waa warshadaha macdanihii loo isticmaalayay bad halkan ku arkaysaan saad arkaysaan waa macdanihii warshada loo isticmaalayay wax soo saarka warshadaha hadaynu halkan kaga bilowno
waa gypsum baa ugu horeeya. Gypsum saad wada garanaysaan waxa weeyaan waa kan loo isticmaalo siliiga siliigan caadiga ah ee aynu isticmaalno. De imika berigii hore waxaa la isticmaali jiray silig. Haddii siliga dadka qaar aanay lahjadaa fahmayn, siliga waxaa la idhaahaa silig waxa weeyaan marka ruufka jiingada la saaro eed aqalka soo gasho, jiingada iyo ruufka markaad cirka saa u egto maqsinkaaga maxaa u dhexeeya? Siliig baa u dhexeeya. Marka siliigaa u dhexeeya jiingada sare halkaad ka arki lahayd, silig baa idin dhexeeya markaad aqalka ku jirto. Marka siligaa imika berigii hore mid looxu ahaan jiray berigii hore berisamaadkii, laakiin imika waxaa la isticmaalaa mid ka samaysan gypsumkan. Dhagaxan gypsum baa laga soo sameeyaa, marka gypsum baa la dhahaa marka gebigiisaba. marka dhagaxaas uu ka samaysan yahay oo hoosta kaga jira budadiisa, marka kaasaa la isticmaalaa. Marka warshadaha isticmaala badanaaba waxyaalo badan way isticmaalaan oo gypsumkaas oo keliya aan ahayn, oo aad u tiro badan oo halkan lagu soo koobi karin. Marka dhulka laga helayno halkan ka eegaynaa 90% waa biyuur buu yidhi. halka laga helo wuxuu yidhi Suuriya Malableh. Suuriya Malableh meel la yidhaaho oo dhulkaas Soomaalida ka mid ah, iyo waxa kale oo laga helaa buu yidhi South of Berbera, wuxuu yidhi koonfurta Berbera aan at Chiqli, waa dhul ka mid ah inay Berbera uma filaya Chiqlidaasi aan Berbera aan Chiqli Berbera aan at Chiqli. Marka Chiqli waa dhulkaas umay ka mid tahay 45 kilometer north Buula Burte, 45 kilometer meel ka soo sokaysa Buula Burte waxaa ka mid tahay dhulkaas Soomaaliya weliba waan garanaya iyadana. Marka Buula Burte waa laga helaa buu yidhi. Marka de waxyaalo badan baad ku samaysan kartaan haddaad heshaan de dhagaxa gypsumka, de waad ka faa'iidaysan kartaan oo warshadahaad ka iibin kartaan, ama idinkaabaad de gypsum samayn kara oo halkii warshad idinka samayn lahayd oo aad dibadda ka keensan lahaydeen gypsumka idinkaa samayn lahaa. Guryaha lagu design garayaa badanaaba gypsumka faa'iidooyin aad u tiro badan buu leeyahay, waad soo baari kartaa xataa faa'iidooyinkiisa. Marka insha Allah ka faa'iidaysta haduu kuu dhow yahay dhagaxa gypsumka. Marka limestones saad aragtaan, limestonesku waa dhagaxaan caadiya iyaguna oo marka limestonku halkan noogu yara sharaxay wuxuu yidhi limestones waxa weeyaan waa dhagaxaan calcium ku badan tahay oo cadcad weeyaan. Marka limestone haddaan idin yara sharxo calciumta ku badan. Marka haddaad aragteen jayga waad garanaysaa ma filayaa, guri marka la dhisayo ama fooq la dhisayo, shubka waxaad aragteen jay cad in loo soo diyaariyo oo jajaban oo shiidan oo cadcad. Marka dhagaxaas jayga ah ee shubka lagu walaaqo ayaa limestone la dhahaa. Marka waa dhagaxa weeyaan, marka waa dhagaxa jayga ah caadiga. Marka saad wada ogtihiin de waa macdan buu soo gelaya isaguna warshadaha isticmaala. Hadday noqoto dhismaha waa inaga ku isticmaalna, oo guryaha marka la dhisayo waxa boqolkiiba fooqa marka la dhisayo 60% jay weeyaan. Marka sagbada la walaaqo inta kale waa sibir, 60% jay baa lagu shubaa. Marka markasta waa taas waad fahmaysaa ma filaya. maxay kale halkee laga helaa buu yidhi, wuxuu yidhi deposits found at Berbera, wuxuu yidhi Berbera laga helaa dhagaxan limestoneka. Chiqli beledweynena waa laga helaa buu yidhi, Berbera Chiqli. Marka Berber Chiqli in beledweyne, Chiqli hadda beledweyne ku taala halkan saad aragtaan meeshan Chiqli la yidhaaho beledweyne ka mid tahay. Anyer Markabileyna way u dhowdahay buu yidhi. Baar dheerana waa laga helaa buu yidhi. East River of Juba, bariga webiga Jubana waa laga helaa buu yidhi. Marka dhulkaasuu daadsan yahay baa lagu leeyahay. Marka waad fahantay ma filaya intaana. Biesa electric quartz baa kan la yidhahaa, Biesa electric quartz. Marka waa quartzkan waa dhagax gemstoneka ka mid oo quartz ah. Marka wuxuu soo hoos galaa dhagxaanta warshadaha loo isticmaalo. Marka dhagaxaasi quartzka ahi haddaan idin yara sharaxo waxa uu kaga duwan yahay dhagaxaanta kale warshadaha loo isticmaala siiba ahaan. Haddaad aragteen haddaad maqasheen saacadaha waxa jira qaaliya oo aad u qaaliya oo la yidhaaho waxay ka samaysan quartz watch baa la yidhaha. Marka saacadaha quartzka loo yaqaano dhagaxa laga soo sameeyo halkii energy-ga ay ku shaqeysan dhagaxa ay ka heshaa waa dhagaxan Biesa electric quartz baa la yidhaha. Marka waa dhagaxa ay energy-ga ka helayso. Marka dhagaxani waxa weeyaan waa dhagax soo saara waxa ku kaydsan awood dab buu leeyahay, electronic buu leeyahay. Haddaad imika duba ka jarto ama marka wax lagu dhufto jug lagu dhufto dab baa kasoo booda dab. Marka electric baa ku kaydsan aad u badan oo dhammaanayn oo natural ah.
marka haddii iminka dubbe aad ku dhufato electric buu soo daynaya daba. marka tusaale ahaan badanaa waxaa laga soo sameeyaa haddaba dhagaxan oo lagu soo daraa waxyaalaha ay ka mid tahay saacadahaasi quartziska ah, saacadaha badankooda xataa aan bayteriga ku shaqeyn, dhagaxana ay ku shaqeeyaan. waxaa kaloo lagu soo sameeyaa haddaynu ka hadalno allahuma salli ala maxamed, waad aragteen bidha ama lighterka sigaarka raggu ku shitaan ama dadkao dhan sigaarka ku shitaan, ama shooladaha bidha yare lagu istaaray dhac tiraa dhac bidha yar ama lighter bay dadku yaqaanaan, ama bidh labadaaba waa la dhahaa. marka lighterkaa sigaarka laga shito ama lagu shito shooladaha, lighterkaasi dhac buu yidhaha saad aragteen, dab yar buu soo boodsiiyaa. caqligiina waad garanaysaan, bal idinkuba haddaad isweydiisaan dabkaa yare bidh odhanaya gaasta marka lagu shido ololayo, halkuu ka yimid dabkaa yare baad isleedihiin. dabkaa yare waxa soo saara dhagaxan baa lasoo saara. marka lighterka yar bahalka yare dhac idhaaha waxa ku dhex jirta, dhacdaasi waxay keenaysaa waa dubihii weeyaan, hamar dhagaxana hamar lagu dhufanaya oo yaroo meesha ku jira, dhagaxan ayaa lagu dhufanaya. gariiratadu waxay samaynaysaa inay ku dhacdo, oy soo booday ku dhacdo dhagaxan kadib marka ay ku dhacdo waxay dhalisaa dab. dabkaa yar waa ka ololinaya gaasta yar furaya. marka waxyaalahaasoo dhan baa loo isticmaalaa oo dab buu keenaa, hilaac yar buu saa usoo daayaa, oo haddii gaas lagu qabta ay ololayo. marka faa'iidadu leeyahay waa taa, aad buu u fiican yahay, warshadaha aad u isticmaalaa. marka aad buu muhiim yahay dhagaxaasi. xataa baabuurta balaagyadooda saad dhac wax kastoo dhac idhaaho oo electric raba inuu soo daayo, dhagaxana laga soo sameeya electric natural, wax kastoo la rabo inuu soo daayo. marka dhagaxaasi waa dhagax aad u muhiima. marka haddaynu halkan usii fiirsano halkee laga helaa buu lafaruug, dacar buruq, onda berbere hargeysa road. marka wuxuu yidhi lafaruug saad wada garanaysaan waxa weeyaan, waxay ka mid tahay wadada berbere iyo hargeysa loo maray u dhaxaysaa. ayaa marka berbere marka lagu sii socdo hargeysa iyo berbere u dhaxaysaa, wadadaasi ayaa lasii marayaa. marka wadada dhexdooda ayay ku taalaa. marka wuxuu yidhi waxaa laga helaa buu yidhi lafaruug meesha loo yaqaano, tuulada lafaruug, iyo dacar buruq tuulada loo yaqaano, degma weeyaan degmada dacar buruq, onda berbere hargeysa road aan eelaayo. marka wadada waxay ku taalaa berbere iyo hargeysa iyo eelaayo. eelaayona waa meel kale iyaduna, inkastoo la xasuusan waan maqle. marka dhulkaa berbere unadu bay ku taalaa, wadada berbere iyo hargeysa u dhaxaysa ayaa laga helaa, aagaasaa laga helaa buu yidhi dhagaxan biyeesa quartzka loo yaqaano. saad wada aragtaan halkan waxaad ku aragtaan dhagax cobar la yidhaho. cobar saad wada ogtihiin waa inagii cashiradeenii hore kusoo qaadanay. cobar waxa uu ahaa dhagax aad u qiimo badan, weliba waxay ka mid ahayd metaliska. marka metaliska warshadaha loo isticmaalay ka mid ahayd, saad wada ogeydeen waxaa loo isticmaali jiray electroniga oo dhan, hadday noqoto xarkaha waayarada, hadday noqoto waxyaalo badan qiimay lahayd. waad garanaysaan halkeeda kilogram inuu ahaa $6. marka faa'iidooyinkeeda waad wada ogtihiin baan filayaa dhagaxaasi. cobar marka wuxuu ku leeyahay cobar bearing quartzites were silver bohol. marka waa meeshii laga heliyo halkan ku yara sharaxay. bohol haddaba bohol waa meel ka mid a dhulkaas soomaalidu degto. marka at bohol buu yidhi at bohol near abasa wadi and born south of born Somaliland. marka aniga lafteedu dee Somaliland waan joogaa, laakiin dee ninkii degan meeshan unbaa garanaya, laakiin ma garanayo aniga lafteedu. bohol at bohol near abasa waa tuulooyin yaryar buu magacyadooda soo tirinaya. marka wuxuu ku leeyahay waa south of born in Somaliland, waxa weeyaan waa koonfurta Bonn, meel Bonn la yidhaahana way jirtaa ma filayaa, waa Somaliland bay ku taallaa buu ku leeyahay Somaliland. marka bohol waa Somaliland bay ka mid tahay, meel ka mid a weeyaan. abasa waa meel ka mid a, abasa wadi south of Bonn waa koonfurta Bonna dee waa meelahaasun bay ka mid tahay Somaliland ka mid a. marka wuxuu yidhi waa in Somaliland, halkan inoogu sii sheegay Somaliland bay ku taallaa buu yidhi meelaha tuulooyinka magacyadooda u sheegay. marka dhulkaasaa laga helaa. aniga lafteedu waan baadi goobi doonaa, waayo dhagaxani waa dhagax aad u muhiima. cobartu waa macdan aad u muhiim u faa'iido badan. sidaad wada ogtihiin haddaynu macdantaa soo saarno, nolol dad badan oo Soomaaliya noloshooda wax badan ka bedeli doontaa. marka aad bay muhiim u tahay. marka nolosheena lafteena waxbay ka bedeli. marka iron buu yidhi macdantan ironka loo yaqaano. iron haddaba waa birtii caadiga ahayd aynu wada sharaxaynay xiisadan ku xigtay. iron haddaba waa birtii caadiga ahayd. haddaba wuxuu yidhi
low grade marka quality-geegu mid uu aad u hooseeyo ayaa laga helaa buu yidhi galaan buur galaan meesha loo yaqaano marka halkan aynu sharaxaynaa haddaba wuxuu yidhi buur galaan buur basement marka buur galaan in buur basement marka buurtuu ku jiraa baan filayaa inuu ka wado marka buur galaan waa meel ka mid a dhulka aadu Soomaalidu degto wuxuu halkan ka wadaa dahmiir marka qof kasta oo Soomaaliya oo tuulada de markaan akhriyo magaceeda xasuustaa de uu garanaya laakiin qofba mid buu garanaya imika halkan berbera rag baan garanayn carburuq la faruuq dad baan garanayn marka nin waliba meeshuu degan yahay ama u dhow uu garanaya markaba magaceeda marka la sheego marka dee marka idinku baa ka faa'iideysan doono waynu isla kaashan doontaan oo waad isku soo bandhigi doontaan fikradihiina markaa chatting-kaad ka wada hadli doontaan dee nin waliba wuxuu fikrad hayo iyo wuxuu kusoo kordhinayo iyo wuxuu soo saarayo dee halkaa isu kaashada oo kala faa'iideysta chatting-ka intaad gashaan chatting-kan kooraska marka nin waliba tuulada uu hayo dee inuu sheego oo dadka u tuso oo waxaasin ka faa'iideynaa adna taad hayso adna tana marka waa in laisku baandhaystaa si la isu kaashado marka waad fahanteen ma filayaa dahmiir body has workable resource marka dahmiir body marka dahmiirna waa meel magac leh oo dhulka laga helayo birta ah marka waa workable buu ku leeyahay waa meel shaqaynaysa resource wax soo saarkeedu waa meel uu shaqaynayo marka dahmiir ma garanayo aniga lafteedu waa dhulka Soomaalidu bay ku taalaa marka magaceeda ma fahmi waayo dee tuulo walba inaad xiftidaa waa qasab in kastay tahay oo dhulkii Soomaalida yihiin laakiin haddana meeshii ku dhow bad magaceeda markasta kugu soo noqonaya maskaxdaad gelaysa uranium to the sad ogtiin waa macdantii caadiga ahayd ee radiationkeedu aadka u badnaa ee loo isticmaalayay nuclear-ka iyo hubka marka waa macdantii tamarta laga dhalinayay sad ogeydeen marka halka laga helayaynu sharaxaynaa aaliyo geele near buurhakaba aduu waxaan oo dhan marka la isku soo wada daro buurhakaba aanay laga helaa meeshaasi buurhakaba resource between buu ku yidhi 10 ilaa iyo 25 kilomitir dhul ilaa 10 ilaa 25 mitir in leeg ayaa laga helayaa ayuu ku leeyahay geelsoor iyaduna waa dhulkaasay ka mid tahay eelbuur waa laga helaa area wuxuu ku leeyahay waabo mirig deposit waabo mirig waa laga helaa iyadana wuxuu ku leeyahay halkanna waxaa laga helaa uu ku yidhi dhuusamareeb waad wada garanaysaa ma filaya dhuusamareebna uraniumta waa laga helaa sidaad wada ogtihiin resources waxaa laga helayaa buu ku wax soo saar 3,000 oo tan ah from ore marka rag badan baan maqlo idhaaha ciid baa taala halkaa igala soo hadla oo ciiddaasi haddaan istaabsiino way ka ololinaysaa marka dee badanka dadkeeni ma fahansana dadkan lagu idhaaho waxbaa qalalay iyo dhinacbaa qalalay unoo afkaa maroorsamo macdantu taataabto jin baa lahayo uu jiro uranium tanoo kale uu ismarmarinayaa ciiddeeda misuu faarigebigiisaba ku dhacayaa ama neerfuhu dhimanayaan marka rag badan baan arko ka oranaya waan isa saaro ciiddeeda ay gubayso oo isma ogaba inuu radiation ku socdo marka waxyaalaha dilaya dadkan waa waxa marka way iska daadsan tahay dhulka dhuusamareeb way taalaa waka marka qofkii degani de markaba uu garanaya qofkii aad dhuusamareeb jooga geelsoor qofkii jooga waaba mirig qofkii jooga uu garanaya aaliyo geela buur marka ceel buur weyn taasi buur hakaba near buur hakaba meesha buur hakaba la yidhaha ninkii jooga uu garanaya idan marka badanaaba waxay u badan yihiin koonfurta Soomaaliya u badan yihiin dhulkani marka koonfurta Soomaaliya dhulka macdantaasi yaala u badan yihiin marka waa sidaa walaalayaal haddaynu halkan ku noqono hoose haddana usii soconno kuwanna waa macdanta warshadaha loo isticmaalay ka mid tahay waa quartz-kii iyo macroline iyo tantalite iyo macrophyte marka waa macdanaha loo isticmaalo warshadaha ayay ka mid tahay kuwanna marka waxay ku leeyihiin waxaa laga helayaa majiyahan aan eelaayo Puntland oo Somaliland majiyahan adu waa dhulkaasun bay ka mid tahay Soomaalida eelaayona waa xeebtay raacsantaan filaya eelaayo meel xeebaa la oran jiray xeebta badda cas Puntland or Somaliland marka dhulka Puntland ama Somaliland bay ku yaalaan buuri marka halkaas aad arkaysaan colin baa ku taala colin baa la yidhaha baashan
bahashani waa iyaduna waxay ka mid tahay resourceska loo isticmaalo warshadaha. resourceska waxyaalo badan baa loo isticmaalaa bahalkan dhagaxan ama kaalinka la yidhaaho. kaalinkani badanaa waa dhagax, waa ciid weeyaan budo ah oo way taalaa dhulka. aad baan u arkaa aniga laftaydu, waa ciid budo ah. marka badanaaba wejigay u fiican tahay. kariimaa laga soo saaraa, daawooyin baa laga sameeyaa, badanaa kariimo badan baa laga soo sameeyaa aad u qaaliya. dhagaxan ama budadan kaalinka loo yaqaano waa budo cad weeyaan, kaalin baa la yidhaahaa. marka natural kaalin baa ku qoran. kariimo waxaa jira kaalinka aad ku arkayso. marka waa dhagax cream laga soo sameyn karo, wax soo saar aad muhiim weeyaan. warshadaha isticmaala waxyaalo kale oo inaan gelinayno waa loo isticmaalaa oo badan oo halkan kusoo koobi karin. Kaolin produced lower characterized weathering buu ku leeyahay deposits northwest Somaliland. wuxuu ku yidhi depositska aadka u badan waxaa laga helaa buu ku yidhi northwest of Somaliland, waqooyi koonfur. north waa waqooyiga, marka waqooyiga Somaliland baa laga helaa buu yidhi. marka saad halkan arkaysaa northwest waxa weeyaan koonfur. marka wuxuu ku leeyahay waqooyi galbeed Somaliland between Laasgeel and Maroodiile. meesha Laasgeel la yidhaho waad garanaysaa ma filayaa. waqooyi galbeed Somaliland baa laga helaa buu yidhi, between meesha u dhaxaysa waqooyi galbeed. markaasuu ka wado waa Hargeysuu ka wadaa ma filayaa. Hargeysa, Berbera, adu dhulkaas oo dhan ba waqooyi galbeed uu yaqaanaa. marka halkaas ka wadaa. marka between Laasgeel and Maroodiile, Laasgeel meesha loo yaqaano iyo Maroodiile inta u dhaxaysa ayuu yaalaa buu ku leeyahay. marka Dennis between markana waa laga helaa. meesha marka la yidhaha markana aan u xasuustaa, markana waa laga helaa between Dennis between Muqdisho, marka iyo Muqdisho meelaha u dhaxeeyana waa laga helaa buu yidhi. halkan buu raacay intaa kale qoraalku iyo Muqdisho inta u dhaxaysa. Kaalin has been found in Buur area, Dubud, Buur Galin. marka buuraha magacyadooda dadka degan baa garanaya. marka waa kuwa iyaguna way akhri karaan. Siyaabo, Buur Siyaabo iyaduna waa laga helaa buu yidhi. marka buurahaas oo dhan buu yaalaa buu ku leeyahay dhagaxan kaalinka la yidhaha. marka illuminaatkaas isagu faa'iido male. kalina waa dhagax iska caadiya. tanaa faa'iido haddaba leh, waa dhuxul dhagaxdii weeyaan. dhuxul dhagaxda halkee laga helaa buu niyar berbera laga helaa buu yidhi. markaa aduu saaxil baa laga helaa berbera. markaa dhulkaasuu yaalaa dhuxul dhagaxda, dhulkaasaa laga helaa. markaa cool deposits dhaban basin and head of head area. marka in la qoday dhuxul dhagaxdu badanaaba u baahan tahay. marka waa wax hoos u qodan. marka deposit aad u badan bay berbera ku leedahay buu yidhi. marka silica sand iyadu faa'iido male, tana faa'iido male. kan waa kiimikaalo. dahabka haddaba muhiima. dahabka haddaba waxa weeyaan sulfide deposits in Arabsiyo and gold quartz vein linked to Pan Africa. Pan Africa waxa weeyaan haddaad ogtihiin Pan Africa garnet waxa weeyaan waa xidid aad u weyn oo Afrika wadamada uu maro dahabku aad ugu qaniya. marka waa vein haddaad maqasho. horta dahabku laba nooc buu kala baxaa sida loo helo. dahabka midina waa dhulka dushiisu iska yaalaa, midina waa mid xidid dhulkaaga maraya oo kale. marka ka xididka veinka ka mara ayaa aad u muhiim oo laga taajiraa oo badanaaba shirkaduhu qodaan. haddaba xidid haddaad heshaan dahaba, South Africa imika dahabka laga qodo waa wadanka ugu dahab soo saarka badan dunida. marka maxay dahabka say u helaan iyagu? xidid baa mara, vein-kan oo kala mara, quartz vein weliba weeyaan. markaas aad wada ogtihiin quartzku waxa weeyaan waxaa loo yaqaanaa dhagax baruur bay Soomaalidu badanaa tirahaa. dhagaxaasi quartzku ka mid yahay, waa nooc min al-quartz. marka dhagaxaasu ku dhex dhashaa kadibna dhulka hoostiisu raacaa. marka xididkaad helaysaa, godka xididkiisii marka aad hesho waad raacaysaa. halkaa intaad ka jebisood kaga bilowdo ayaad malaha 150 kilomitir baad dhulka hoostiisa qodaysaa ood saa u xulaysaa ood xididkaa la soconaysaa, raacaysaa. marka maalintii intaasoo kilogram oo dahaba maalin kasta laga soo saaraya. marka waa dahabka aan la marinba badanaaba dhulka hoostiisa laga helo.
marka waa dahabka feenka. Feenna haddaad maqasho xidid weeyaan, xididkuna waxa weeyaan waa wax meel intuu kasoo bilaabmo meel ku dhamaada, marka waa xidid dheer oo Pan Africa ayaa la yidhahaa, marka badanaaba Africa u dhex mara. marka feenkaasa laga helaa Arabsiyo. Arabsiyana saad wada garanaysaan waa degmo ka mid ah gobolka Gabiley, markaa Somaliland bay ku taalaa buu ku leeyahay, West Somaliland waa galbeedka Somaliland. Cabdulqaadirna qofkii garanaya wuu garan talow, laakiin Cabdulqaadir iyada lafteedu waa tuulo iyaduna laga helayo, tuulo Cabdulqaadir la yidhaahdo. marka waa muhiim, baaritaankani aad buu muhiim yahay wallah. marka Jamestown-kana muhiimaynu kusoo gabagabaynaynaa oo aad u muhiima. Jamestown-kan waa dhagaxaantii iyaguna Jamestown-ka qaaliga ahaa, hadday noqoto emerald-ka, sapphire, ruby, aquamarine, opal, intanuba dhulka Soomaalida laga helaa buu ku leeyahay, wax kale oo laga helaa ma jiro. Diamond laynaguma sheegin, laakiin intan kale waa laynagu sheegay. Emerald-ka waa laynagu sheegay, sapphire-ka waa laynagu sheegay, ruby-ga waa laynagu sheegay, aquamarine waa laynagu sheegay, opal, tourmaline, garnet, red spinel, marka intaasoo dhan waa laynagu sheegay. marka wuxuu ku leeyahay waxaasoo dhan waxaa laga helaa gobolada halkan ku yaala Boorame, Hargeysa, Shiikh, Erigabo. marka haddii aynu macnaysano intaasi waxay macnaheedu tahay aduu silsilada gulis ka soo bilow Boorame ku soo bilaabantaa ilaa iyo Ceerigaabay halkaa ka gashaa, waxa kale sii dhex martaa haddana badday halkaa ka gashaa. marka silsilada gulis unbay raacsan tahay buu ku leeyahay macdantan Jamestown. buuraha silsilada gulis baa laga helayaa, hadday emerald noqoto sidaad ogtihiina waa laga helaa dee silsilada gulis. marka buuraha silsiladaha aadka u dheeray waqooyiga Somaliland mara, marka halkaas kasoo bilaabmaan ilaa halkaana way ku dhaadhacaan, marka ilaa waxay galaan halkaa badday ka galaan halkaa. marka buurahaasa aad looga helay ku badan yihiin macdantani. marka kuwan waxaa la yidhahaa dimension rock aggregates. marka waa aggregates kuwa dhagaxaantii caadiga ahaa ee loo isticmaalayay buuxin hadday noqoto ama guryaha in lagu dhiso. marka waa kuwan faa'iido male iyagu, waa guryaha waa kuwan caadiga ah, dhagaxaantan caadiga ah dhulka daadsan weeyaan. marka aggregateski weeyaan, badanaa waxaa loo isticmaalaa dhagaxaanta in guryaha lagu dhiso, in lagu dhiso in seesaska lagu buuxiyo, in waxyaalahaas loo isticmaalaa. marka iyaguna dhulka laga helaa, meel kasta way yaalaan, kolay magaalo aanay aggregates yaalin ma jiraan. marka insha Allah casharkeenan maanta halkaasaan kusoo gabagabayn doonaa, tan iyo intaan ku kulmi doono xiisadan xigta. aad iyo aad baad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.